iyadoo maalmihii u dambeysay magaalada Kismaayo uu si xiriir uga daayay roobabka guga isla markaasina uu saameyn weyn ku yeeshay qaar ka mid ah xaafadaha magaalada iyo wadooyinka waaweyn taasi oo inta badan sababtay inuu hakad galo isku socodka gaadiidka iyo waliba dadweynaha kadib markii roobabkii xoogganaa ee ka daayay magaalada ay buux dhaafiyeen wadooyinka iyo qaar ka mid ah xaafadaha. tani waa xaafada Farjana gaar ahaan waaxda Waabari waxaana xilligan ka muuqata saameynta roobka uu u geystay. qaar ka mid ah qoysaska ku dhaqan xaafadan oo la hadlay warbaahinta ayaa ka hadlay saameynta uu geystay roobka. aniga magacayga Xaliin Maxamed Xasan biyaan intaan dhaxjibna oo roobkan naga daa Ilaahay keena galay maanta daba isho roobkan biyaan dhaxjibna meel la jiifanay mara masqulaha iyo godaha ay isku darsadaan inta xaafad oo daris ilaa ahna ay wada qaxeen anigana oo saan u rafaadsanahay oo haddaan ciid ku shubna xataa uu saan yahay masqulihii nagu dumeen goglihii alaabti wixii dhan naga wada qoyaan hal jooradi iyo hal weel nooma dhaqno dhammaan hadee waa u jeedin meesha aan taaganahay barwaaqadii roobka oo Ilaahayna siiyay ayaa saan noo barakicisay guriyii waa ka soo baxnay ciyaalkii macnaha gacmaha ku haysanaa banaanka ayaan tuuranahay intaas ka sokow ummadda muslimiinta meesha ay ka soo joogan dawladaha midda Soomaaliya midda Jubbaland dhamaantood waxaan ka codsanaynaa biyaha sida ay yihiin waa u jeedin in gargaar macnaha bini'aadanimo nolo fidiyo. Abadoon Axmed Maxamed Xasan oo kamid ah odayaasha dhaqanka ee degan xaafadan ayaa baaq u diray maamulka Jubbaland iyo dhammaan muslimiinta meel walbo ay joogaan in ay soo caawiyaan dadka ku waxyeeloobay roobkii ka daayay gudaha magaalada Kismaayo. waxaan indhahayga saaray miis weyn oo kii alaabta la saarayay oo ilaa 2 mitir ah dushiisa dad afur ku karsanayo aan haysanin haday masquul u baahdaan meel ay galaan aan haysan biyaha cabaan u baahdaan ceelku ka burburay oo ka dumay biyihii maxaan ku waraada caruurtii iyo isdhax yaalaan iyo haweenkii iyo dadka dhammaan iswada dhax yaalaan dadka makasta marasta meeshiis yaalaan baan indhahay ku soo arkay anuu oday waxaan ka mid ahay xaafadaas ayada degan gudiga waxaan ka mid ahay maxaan ku waraada xaafadaas waa bari yaan ka mid ahay halkaas dhibaatadaas baa ka dhacday roobkaas iyo barwaaqadaas Ilaahayna siiyay baana yaa sababay dhammaan dhalinyaro waxgarad hawshaas ayada laga qayb qaato qaasatan odayaal dhaqameedyada Jubbaland taariikhda in qorayso halkaas ayada masiiba ka jirto masiiba rabbaani oo maxaan ku yiraahdaa Ilaahay weyna alxamdulillah rabbil caalamiin roobkiisa ka dhashay baa ka jirto dad ka badan maxaan kuma yaaraan ku baabaahayo war dadkaas arka oo nala eega oo waxaan sheegaynaa nala xaqiijiyo oo dadkaas ayada waxaad ka qaban kartaan ka qabto. si kastaba ha ahaatee cabashadan ka soo yeertay qoysaskan uu saameeyay roobka ayaa waxa ay ku soo aadaysaa iyadoo maalinnimadii shalay ahayd guddiga gurmadka fatahaadaha ee heer federaal uu ku wareejiyay maamul goboleedka Jubbaland lacag gaaraysa $250,000 taasi oo la doonayo in wax looga qabto xaaladaha fatahaadaha iyo roobabka ee ka jira deegaanada Jubbaland. Cabdirasaaq Awil Cali Cabdirasaaq Al-Cadaala Sab TV Kismaayo.